isku soo noqod wanaagsan. Muuqaalkan waxaa uga hadlaynaa qodobka shanaad ee visual elements oo ah space. Spaceka waxa uu abuuraa wax nuxur leh oo qurxan. Spaceka waxaa loo qaybiyaa laba qayb. Types of space waxaa dhihi karnaa positive space iyo negative space. Positive space waxa uu noqon karaa mid 2 dimension leh ama 3 dimension leh. Positive space waxaa lagu qeexaa shape ama object kaasoo loo tixgelinayo inuu muujiyo focuska, yani wax diiradda inuu muujiyo. Negative space waa qayb banaan oo design-ka ka mid ah, sida midkaan hadda inoo muuqdo. waxa uu inoo soo saaray background-ka dambe ee inoo muuqdo ee cagaaran. marka qaybtaas waxaa leenahay negative space. boxkan madowga oo afargeeska qaybta yarta ee cagaaran ee ku dhex jirto waxaa leenahay negative space. Negative space waa qayb midaysan oo kaaga dhex muuqda design-ka sida positive space. Negative space waa muhiim oo wuxuu ka caawinayaa frame-ka waxa uuna ku jiraa composition. Negative space wuxuu isku xiraa ama kala gooyaa shapeska si loo muujiyo xiriirka ka dhexeeya shapeska. Negative space waxa uu ka fogeynayaa ama design-ka ka ilaalinayaa wax buuqsan ama wax isku yaacsan. waxa uuna sameeyaa wax symbol ah oo fudud kaas oo ka caawinaya composition-ka in uu balance noqdo, sidoo kalena focuska uusan lumin, yani diiradda inaysan lumin ayuu ka caawinaya. Positive iyo negative space waxa sameeyo waa sida la isugu arrange gareeyo ama qaabka la isugu hagaajiyo kaasoo u muuqanayo shapeska. ugu dambeyn, waxyaabaha saameeya shapeska si loo soo saaro wax dynamic ah, waxyaabahaas waxaa ka mid ah proximity, overlap, opacity, light and shadow iyo perspective. haddaan isku dayno inaan mid u aragno, waxaa ku hormaraynaa proximity. wax la yiraahdo proximity si fudud waxaa dhihi karnaa waa space u dhexeeya shapeska midba midka kale, ama ha ka fogaada ama ha u dhawaado. sida noo muuqato muuqaalkan si fiican u fiiri. Overlap waxaa dhihi karnaa waa markii shapeska la isdul saaro kadib effectiga ka soo baxa ayaa leenahay waa overlap. Opacity waa markii objectiga lagu sameeyo transparent, yani wax in laga dhex arko. Transparent markaa leenahay waxa waaye wax qaybta dambe in wax laga dhex arki karo. Opacityga oo la yareeyo transparency-giisa waxay sababaysaa in uu light noqdo. marka opacityga la yareeyo, transparency-ga yani aragtida qaybta dambe in la arko waxay noqonaysaa mid light ah oo xogaa qafiif ah inay noqoto. Opacityga wuxuu qarinayaa negative iyo positive space-ka. markii overlap lagu sameeyana wuxuu ka dhigayaa mid dynamic ah. Light and shadow wuxuu objectiga ka dhigaa mid 3 muuqaal leh. waxaas ka eegi kartaa sawirka in hor yaalo. Shadow waxaa lagu sameeyay shape kore ee light-ka ah, yani shadowga hadda meesha waxaa noo yaalo 2 shape, mid madow yahay iyo mid cadays yahay. marka midka kore waxaa lagu sameeyay shadow effect leh. marka meesha waxaa nooga soo baxaya light and shadow oo effect leh. Perspective yani waxaa dhihi karnaa waa arrangement-iga ama isku hagaajinta iyo objects-ka iyagoo milan ah si ay ugu muuqdaan wax real life ah. Perspective waxa uu noqon karaa mid overlap ah isagoo isu dhow si uu u muuqdo. markii la joogo design-ka ma jirto waddo go'aaminaysa in laga dhigo mid qoto dheer shapeska, balse waxaa loo baahan yahay in ay isu dhawaadaan oo ay noqdaan negative ama positive space si loo sameeyo focal point, balance iyo mid aad u muuqdo oo clear ah. halkan waxaa inoogu eg qodobka shanaad ee visual element ee ah space. waa inoo muuqaalka xiga insha Allah.